أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما تقول دورك هالسبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo alaab aad ka dhigaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya ha yeeshee barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa aktarad u dhalatay dalkaasi Pakistan oo lagu magacaabo Rishan ayaa waxaa saaka aroornimadii meydkeeda laga helay dalkaasi Pakistan magaaladii ay ka deganeyd haddaba aktaradan ayaa waxaa la sheegay oo caan ka ahayd gudaha dalkaasi Hindiya kana qayb gashay filimo badan oo Bollywood ahaydna dhanka heesaha caadiga ee afka Urduga lagu qaado ku luqaysa Rajana waxaa lagu tiriyaa in ay yahay dadka ugu caansan ee soo mara abid dalkaasi Pakistan dadka fanka dhanka jileenka ku jira Rajana ayaa waxaa la sheegay in ay kaligeed ahayn dadka la dilay muddooyinka u dambeeyay waxaa dil toos ah la beegsanaya dadka fanka ku jira iyadoo oo aad moodo in laga ciribtirayo in dalkaasi Pakistan ay u soo baxaan dad jileenka ku wanaagsan oo lagala dirirayay in ay yeeshaan fanaaniin iyo jilayaal wax jili kara taasina waxa ay sababtay ugu dambeyn in saaka la sheegay in la dilay Rishana laba nin ayaa toogatay ha yeeshee dilkaasi waxa eediisa dusha laga saaray iyada saygeeda waxaana lagu eedeeyay in uu isaga ka dambeeyay oo ragga dilay Rishana isaga uu soo dirsaday kadib markii raggaasi ay dileen ayay baxsadeen sida la sheegay ha yeeshee booliska ayaa gacanta ku dhigay iyada saygeeda booliska ayaa gacanta ku haya haatan baaritaanka ayay wadaan waxaana la sheegay markii qoyskeeda la wareystay oo ay boolisku wareysteen in muddooyinkii u dambeeyayba ay Rishana la deganeyn saygeeda khilaaf soo kala dhexgalay sanadihii u dambeeyay khilaafkaasi muddo markii la xallin waayay walaalkeed ayay la degtay oo ay la noolayd waxaana dhacday in saygeeda uu banaanadaasi ka raaraasan jiray una hanjabi jiray ugu dambeynna waxaa la sheegay in raggan iyada toogtay uu isaga lacag soo siiyay oo ay dileen haddaba dilka loo geystay qoyskeeda ayaa aad uga xun waxa ayna sheegeen in gacan ku dhiglahan ragga u adeegsaday gabadhoodii in tiirka la soo taago waxa uu sharcigu mudan yahayna la marsiiyo sanadahan dambe dalkaasi Pakistan ayaa waxaa caado ka noqotay in dilal toos ah lala beegsado aktarada iyadoo oo dilal badan loo geystay sanadihii ugu dambeeyay ama 5 sano ugu dambeysay waxaa la sheegaa in dalkaasi Pakistan gudihiisa lagu dilay ilaa dhowr iyo 10 dhanka fanka ku jira ama haday ahaan lahayn heesaha ama haday ahaan lahayn dhanka jilinka filimaanta sameeya ama musalsalada dalkaasi Pakistan laga daawado dilkana waxa uu noqon doonaa kii u dambeeyay ee haatan ka dhaca dalkaasi Pakistan markii la soo sheegay ama la helay meydka Rishana oo laba nin ay toogatay dilkaasina waxa uu eedeysan oo u xiran haatan saygeeda baaritaankaasi marka uu soo dhamaado oo la cadeeyo inuu isaga ka dambeeyay kullu waxa ay tahay in maxkamad la soo taagi doono inkastoo warkaasi inuu isaga ka dambeeyay aysan wali cadeyn oo aan la hubin oo eedeyn ay marayso isaga ayaa ka dambeeyay ragga dilayna isaga ayaa soo dirsaday waa sida dacwadda ama lagaga gudbiyay ninka iyada qabay oo khilaaf kala dhaxeeyay haddaba daawadayaal intaas ayaanu ku soo afmeerinaa dilka loo geystay Rishana oo ahayd aktarad caan oo reer Pakistan oo ka howlgali jirtay gudaha dalkaasi Pakistan iyo gudaha dalka India ee Bollywoodka marxuumadan ayaa geeriyootay kadib markii laba nin oo dabley ay dileen ninkeeda ayaana u xiran wixii war ka soo kordho barnaamijyada dambe ee ka bixi doona saxafi ayaad ku daawan doontaan intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynaya halka aad ka daawanaysiin waa saxafi films oo alaaba diyaar idin la dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka daadan kamid ahayn baada ku xiran saxafi barnaamijkan aad daawanaysa like saar kadibna subscribe deh saxafi films channel taaba gambareelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kugu noqdaan fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee isa saxafi films inagoo isku duuban oo baada saxafina intiinu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono daawadayaal dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.